sida ay ku waramayaan ila xoggaal ah oo ka agdhow madaxweynayaasha Oromada iyo Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo Lama Magarsa ayaa sheegaya in maamulka Oromadu ay wadaan shirqoolo horlo ay rabaan inay xilka kaga tuuraan madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. dhalinyarada Oromada ee majaraha u haysa isbedelka siyaasadeed iyo kacdoonka ka socda dalka Itoobiya ayuu cuntami waayay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. siyaasiyiinta Oromada oo ugu horeeyo madaxweynaha ismaamulka Oromada Lama Magarsa ayaa ku qanci waayay habdhaqanka madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. Lama Magarsa ayaan ku qanacsanayn in madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu sii ahaado madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida. si gaar ah waxay Oromadu walaac uga qabaan xilkasnimada madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo noqon waayay sidii ay rabeen, iyagoo maamulka Oromadu uu rabay inay noqdaan camiil ama dabaqoodhi u shaqeeya iyaga ayna ku adeegtaan sidii hore u soo dhici jirtay. sidoo kale waxay walaac aad u badan ka qabaan xiriirkiisa dhanka reer galbeedka iyo hay'adaha caalamiga ah. maamulka Oromada ayaa sidoo kale waxa uu cuntami weyday habka uu madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar u soo dhaweeyay jabhadda ONLF, iyagoo qiyaasayay in halkaasi uu ka dhici doono khilaaf u dhaxeeya ONLF iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida. tallaabooyinka uu qaaday madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa ku qancila maamulka Oromada, waxaana durbaba soo baxay mucaaradka iyo hadallada ka dhanka madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. lama oga shirqoolada ay wadaan Lama Magarsa iyo kooxdiisu inuu ku weheliyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. waxaa suurtagal ah in bilaha soo socda ay bilaabaan mucaarad iyo abaabul ka dhana madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, mucaaradkaas oo taageero hoose ka haysta ismaamulka Oromada. madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa marar badan waxa uu ku celceliyay inuusan marnaba ogolaan doonin inta ka kamida dhulweynaha Soomaalida ay qaataan Oromada iyo waliba qoomiyadaha deriska la. habdhaqanka madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo tallaabooyinka uu qaaday muddadii yareyd ee uu xilka hayay ayaa waxa walaac xoogan ka muujiyay maamulka Oromada. dagaalka ku socda madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ee kaga imaanaya Lama Magarsa madaxweynaha ismaamulka Oromada iyo dhalinyarada Oromada ee kacdoon wadayaasha ayaa sare u sii kacay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay. madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa wajahaya dagaal xoogan oo kaga imaanaya qoomiyadda Oromada oo iyadu hadda haysa talada dalka Itoobiya. madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa waraysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in isbedel la taaban karo uu ka dhacay dhulka Soomaalida, balse gobolka Oromiya uusan ka dhicin wax isbedela, taasi oo loo fasirtay in weli talada gobolka Oromada ay hayaan saraakiishii horey ula soo shaqayn jiray kooxda TPLF. shacbiga Soomaalida guud ahaan ayaa waxa ku socda dagaal dhanka xuduudda ah, iyadoo haddana ay bilaabeen Oromadu dagaal dhanka siyaasadda iyo saxaafadda. lama oga halka uu ku dambeyn doono dagaalka ay maamulka Oromadu ku hayaan madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo xukuumaddiisa. waxa kaliya ee shacbiga Soomaaliyeed ay kaga gudbi karaan dagaalka wajiyada faraha badan ee ku socda maamulka Soomaalida ayaa ah iskaashi